Asalaamu calaykum. Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Waxaan kaga hadli doonaa diin la leeyahay way cusub tahay laakiin xilli hore jirtay iyo hadda dadka ay ogaadeen oo la yiraahdo ayziidiyuun ama ayziidiyiin. Diintaas ayaan kaga hadli doonaa. Ma diin islaam ah, ma diin shaydaanada la caabuda, ma diin kala. Diintaas waxa ay tahay meesha ay kasoo aasaasantay iyo dadkeeda maxay ku dhaqmaan, maxay aaminsan yihiin ayaan kaga hadli doonaa muuqaalka. Soo dhawaada. Haddii ay tahay markii kugu horreysay ana soo booqataa, subscribe noo saar, gambaleelkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan. Haddaa familka ka tirsan tahayna like noo saar, asxaabtaadan usii share garay. Soo dhawaada. Ayziidiyiin ama yaziidiyiin, ayziidiyuun magaca siyaalo badan ayuu ku yimid oo la leeyahay ayziidiyiin la yiraahdaa ama ayziidiyuun ama yaziidiyuun la yiraahdaa. Waxay ahaataba waa sidaas ayuu ku yimaadaa. Taariikhyahanadu waxay sheegaan in meelo badan ay ku sheegaan inay dadkan diintan ay ka timid ee dadkan aslahan ka imaadeen. Taariikhyahanada qaar waxay yiraahdaan waxay ka yimaadeen magaalo la yiraahdo Yaziid oo ku taalo Faarisiyada ku taalo ay dadkan kasoo farcameen oo diintooda xagga ay ka timid ay yiraahdaan. Taariikhyahanada qaar waxay dhahaan dadkan waxay kasoo farcameen Yaziid ibn Muawiya. oo dadka soo farcameen Yaziid ibn Muawiya si magaca ugu egyahay magaca Yaziid iyo diinta oo ah ayziidiyuun ama yaziidiyuun. Marka ilaaha og oo taariikhyahanada qaar waxay dhahaan waxay kasoo farcameen Yaziid ibn Muawiya. Kelimada Farisiga ah, kelimadan waa kelimad Farisi ah oo ah Yaziid waa kelimad Farisi ay macna ilaaha waaye. Marka dadkan xagee degan? Dadkan waxay degan waqooyiga Ciraaq iyo waqooyiga Suuriya, Turkiga iyo Georgia qaybo kamid ah, Turkiga qaybo kamid ah iyo waqooyiga Ciraaq iyo Suuriya labadaba way degan. Dadkan marka ugu horreysa dadkan ee kitaab laga qoro ama xaalkooda laga warramo waxaa ka hadlay qoraagii la dhihi jiray Cabdikariim Samcaani 1167 markay ahayd ayuu kitaab ka qoray uu kaga hadlayay dadkan xagee ka imaadeen, xagee ku socdaan. Marka haddii aan ka hadalno diintooda, dadkan waa dad sooma sanadkii waxay ka soomaan sanadkii 3 maalin ee soomaan. Sanadkan 3 maalin ayaa qofka waajib ku ah inuu soomo. Xajka dadkan waxaa sharci u ah ee diintooda soo sheegtay uu ogashahay qofka intuu nool yahay inuu hal mar u xajiyo waa qasab. Xajkaas uu halka mar intuu nool yahay u xajinayo waa 7 maalin xaj soconayo. Waxay u xajiyaan meel la yiraahdo Laalish. Xajkan marka wuxuu ku imaaday ee Laalish ay u xajinayaan nin la yiraahdo Uday ibn Musaafir oo suufi ahaa oo dadkan zaahidka ah oo diintii aaminsan oo diimaha ku adag ahaa ayaa wuxuu degnaa Baqdaad uu degnaa. Marka uu isaga tagay maadaama meel magaalo ah oo zaxmadeeda badan tahay oo ku nool yahay asagana qof zaahid ah oo diintii iyo ku adag u yahay uu iska baxo meel miyi ah oo la yiraahdo Laalish ayuu qabtay si uu xagga diintiisii ugu cibaadeysto. Marka soo meeshas ugu noolaa Laalish leeyahay uu noloshiisii ku qaatay ayuu ku dhintay meeshii lagu duugay. Marka qabrigiisii waxay ka dhisteen dadkan macbad. Ninkan waxay ka aaminsan yihiin Uday ibn Musaafir leeyahay inuu yahay asalkii iyo aasaasihii iyo cusboonayihii diintan. maadaama uu soo cusboonaysiiyay saas oo ay yiraahdaan oo qabrigiisii ay macbad ka samaysteen oo Laalish ku yaal ay sanadkiiba hal mar loo xajiyaa oo qofkan waxa waajib ku ah ay leeyihiin in intuu nool yahay hal mar uu xajiyo xajkaasna mid 7 maalmood soconayo uu yahay. Qabrigiisii ay macbad ka dul dhiseen. Inta badan dadkan diintooda qomuda ku jiro oo lama ogo maadaama ayaga aysan ogolaan in diintooda ka hadlaan waxayna ogol yihiin in dadka ay ogaadaan inta ayaga ay ka sheegeen diintooda bis in laga ogaado dad jecel waaye oo waxyaalaha badan inta badan diintooda in wax laga ogaado ma jecla dadkan. Taariikhyahanada qaar waxay yiraahdaan dadkan waxay kasoo farcameen axfaad umawiyiinta waa la yiraahdaa oo umawiyiintii ilmihii ay awowayaashii u ahaayeen waaye oo taariikhda waxay dhahaan inta badan waa dadkan umawiyiinta waxay ka carareen axfaad umawiyiinta waaye waxay ka carareen cabaasiyiintii markay firdhidka ay ahaayeen ay hoodka galeen meeshaas ku noolaan jireen markii soo laabashadu ay soo laabahayeen ayay la soo laabteen diintan ay leeyihiin ayziidiyuun ayaan nahay ayay la soo laabteen. laakiin xaqiiqada waxay tahay Ilaahay og ayaga ahaan waxay dhahaan xagee nasligooda ama
nasabkooda xaguu ka yimid ayaga waxay dhahaan waxaan ka imaanay aadam ayaan ka imaanay nebi aadam laakiin xawaa kama imaan oo waxay leeyihiin inta aysan isguursan xawaa iyo aadam guurkooda ka hor muran ayaa dhex maray marka waxay ku heshiiyeen inay nasligooda ama tarankoodii ay tijaabiyaan in geeda saaran wixii kasoo baxan ay arkaan marka waxay leeyihiin kii xawaa markii muddo kadib u timid nasligeedii ay fiirisay waxaa kaga soo baxay leeyihiin masas iyo waxyaala kaga soo baxeen halka kii aadam nasligiisii geedka marka loogaga tagayna oo wiil qurux badan uu kasoo bax marka waxay dhahaan wiilkan quruxda badanne uu nasliga aadam uu geedka saara ahaa oo ka dhashay ilaahay wuxuu soo diray leeyihiin xooriyo oo saas uu ku guursaday marka meeshaas ayay ka imaadeen Yazidiyintan ama Yazidiyuntan ay ka imaadeen waxyaalo kale sheegan way jira oo waxay dhahaan in wiilkan uu wiili gabar mataan camal oo qurux badan geedka u saarnaayeen oo nasligiisa ka soo bixin halka kii xawaana ee bahalla ka soo bixin iyo masas marka kii aadam markii wiili gabar qurux badan ay ka soo bixeen markii dambe ayaga is guursadeen halkaas ay ka soo farcameen Yazidiyinta ama Yazidiyunta saas ay yiraahdaan laakiin xaqiiqada ilaahay og meesha ka imaadeen dunida dadka saaran nabiyullaahi aadam iyo xawaa ay ka soo farcameen dadka shimbirka daawuska leeyahay waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay masdar khayr ah oo way barakeystaan oo waxay u yaqaaniin inuu yahay boqor inuu yahay ka aaminsan yihiin oo khayr iyo inuu waxyaalo u keenay ay aaminsan yihiin hore soo sheegna dadkan sanadkii 3 maalin ayay ka soomaan wad 5 waqti dukanayo laakiin waxay u dukadaan meesha qoraxda ka soo baxdo ayay u dukadaan meesha qoraxda ka soo baxda ay wajigooda aadiyaan salaadooda u dukadaan dadkan Yazidiyinta la lahayo diintooda lama soo gali karo oo dunida waxaa jira dad diime inta ka baxa diime kala gala ayaa jiro marka diintooda lama soo gali karo oo qofku Yazidi wuxuu noqon karaa ama Yazidi wuxuu noqon karaa hadii hooyadii iyo aabihii dhaleen uu ka dhashay diintan Yazidiyada uu ka dhashay bas qofku wuxuu ku noqon karaa Yazidi ama Yazidi uu ku noqon karaa laakiin hadii labadiisa waalid mid kamid ah uu kay diintan ka dhashay halka kan kalena uusan ka dhalan banaanka uu ka yimid diintan ma soo gali karo ayagana ma ictiraafayaan oo inuu ayaga kamid yahay oo ma qaadahayaan oo waxaa dhacday in maadaama ay Ciraaq Syria degan xilliyada Ciraaq Syria dagaalada xooggan ka jireen dadkan wadad oo ayaga dhan gooni isku sooco inay dadka dhex galaan aanan jeclaynin gooni u degnaayeen markii maadaama dagaalada Syria iyo Ciraaq ay qarxeen dhulalkooda waxa uu tagay qoliyihii dagaalamayeen labada dhinac waxay rabaan ha ahaadaano marka labada qoliyihii dagaalamay ayaa waxay ugu tageen dhulalkoodii dadkii marka way barakaceen markay barakacayeen dad laga qafaasho laga qabsaday ilaa iyo 6,000 gaarana la yiraahdaa dadka laga qabsaday laakiin gadaalka dambe 3,000 iyo jajab qofood laga soo helay oo soo badbaadeen dadka marka meesha dagaalka dhaco dadka way kala firdhahayeen firdadka qaar waxa 6,000 laga qabtay marka 3,000 oo kamid oo soo badbaadin gabdhihi qaar waxay wataan ilmo si doonaan baa ku dhalaan ama guur ku dhalaan ama kufsi ku dhalaano gabdhihi qaar kamid ah waxay wataan ilmo yar yar oo dagaalada xilligii ayaga la qafaashay ilmihii u dhasheen ayay wataan marka maadaama ay dadkii soo nabad laabteen oo la soo badbaadiyay Yazidiyintu way iska diidan ilmahan oo waxay dhahan ilmahan maadaama aabayaasha dhalay aysan ahayn Yazidiyin ama Yazidiyin aysan ahayn dadka anaga naguma abtirsan karaan waa in nagala fogeeyaan hooyooyinkan inta badan waxay u badan yihiin ilmihii ka tagi karin markii hay'adaha caalamka waxa loo raadinayay in maxaa la yiraahdaa gacan loo fidiyo oo wax uun loo sameeyo ayaa loo raadinayay dadkan si ilmahaas u badbaadaan maadaama ay hooyooyinkii meesha ay ka yimaadeen asal ahaan laga diiday ilmahan dadkan waxay aaminsan yihiin in asal ahaan dadka Ciraaq ka soo jeeda ee aqaliyadka ah hadirtan in ayaga yihiin waxay leeyihiin dadka asal Ciraaq u dhashay wax yar ka haray wixii rayo ka haran anaga way saas ayay aaminsan yihiin oo inay Ciraaq asal ahaan ayaga leeyahay aaminsan yihiin laakiin caadi ahaan waxa la yiraahdaa waqooyiga Ciraaq waqooyiga Suuriya Turkiga qaybo kamid ah iyo Georgia qaybo kamid ah ay deegaan taas ayaa lagu yiraahdaa diintan waxaan hore u soo sheegnay 167 markay ahayd ayaa Cabdikariim Samcaan ninka la hayo uu kitaab ka qoray uu ka hadlayay laakiin hadeertan waxay soo laabatay markii uu dagaalada ay dhaceen oo hadda sheegayni dagaalada Ciraaq ay Syria dhaceen gabar waxaa jirtay dadka diintan haysta u dhalatay oo la siiyay jaayisad nabadgelyada oo Nobel la siiyay markaas marka la sheegay in gabadhan diintaas ay leedahay
markaas ayaa hadeertaan caalamka uu bilaabay 2018 miya meelahaas in heeda amaleha ma hubi markaas ay marka diintan dadkii inay ogaadaan oo la baadi goob xagga ku nool yihiin maxay caabudaan ma islaama ma diimo kala ma diintooda maxay tahay xagga ka soo farxameen markaas ayaa la bilaabay in la raadiyo oo la dabagalo muuqaalka intaan ayaan kusoo gabagabeynaa waxaan rajeynayaa insha Allah inaad wax badan ka ogaateen soo dhawaada haddii aad markii kugu horeysa aan soo booqataa subscribe noo saar gambalelkana fursi fiidiyowyada cusub ku soo gaaraan haddaa familka ka tirsan tahayna like noo saar asxaabtaadan u sii share garee soo dhawaada